waxaan u dirayaa USA Minnesota insha Allah saaxiibkayga shaamboorta mid kamid ah ayaan u dirayaa oo soo dirsaday saddex shaambo iyo hal condition ayay dhahay insha Allah waana maasantahay khiyaarta waxay rajaynayaa qof walba hadaf ku leeyahay insha Allah inuu gaaro waana maasantahay yes waxay yaqaanaan bay ku caawinayaan walaalahood intaas loo baahan in la iscaawiyo just ani kaliya ma aqaan idinka dhan waxay waa taqaanaan marka fadlan hayse yeelna adoo wixii bay yaqaano ku gali kara marar adaa gacmaha ku keensanayo marka adiga gacmaha ku keensanin waxaan ilaahay uu ka celinaya laakiin dadaalkeeda la imow assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wa salaam dhamaan asxaabta waa aniga Muuse meesha naga socotaan waa kulan la bidaar caawiye kaashanbuurta dhamaantiin oo maasantiin sida sharafta la isku rab saagsantiin aadna inta garteen fadlan haddii nagu cusub tahay subscribe like share comment inta waa kama marna haddaan ka gudubno insha Allah biidnillaahi kariim darmarolkayga waa haystaa aniga horta labadan beri inta afkaan hore mujida ilaa halkaan ilaa intaas tima iga soo baxay marka awal intaas tima ma lahayn fahantilaa timi hadda waa timi aad dhulka ugu dhagan kuwii kale hadda gadaal ay joogaan ayaga kuwa badan inta ka soo baxay marka waxaan rabaa hadda inaan si fiican u sii tumo ma fahanta oo si isbedelka u sii bato isbedelka soo u sii bataan rabaa insha Allah biidnillaahi kariim isbedelkan waa fiican yahay mid kalena waa idin wadaa insha Allah horta waxaan idin sheegayaa castor oilkii aniga aan shalay ka hadlay waxaan faaniye ma waxaan gadan ma kaliya just tale bas ma fahanti tala keen aho ama tala raac aho marka waxaan arkay dad badan oo horta ka gubanaya macnaha talada ka gubanayo oo macnaha dagaal isaga jiraan dagaal caadi isaga jiraan marka dib bal waxaas looma joojinayo gaashaanbuurta uma joojinaysa insha Allah waxay just talaad ani waxaan intusayaa dadka caadiga timooda completeka yahay macnaha waxaan ka wadaa rag iyo dumar waxa jiro hadda gabdhaha kale been idin sheega da isticmaashan timaha waa idin korinaysa timaha gaagaaban timaha u dheereen way idin ka caawinaysaa taas aamina tijaabiyo indiina wax ku arka insha Allah isbedelka insha Allah indiina bal wax ku arka isticmaala arka idinka arki doona ragga saas oo kale dhalinyarta hatta dhalinyarta jeelka isticmaalso booski jeelka hatta oo galayso waa saliid normal oo caadi ma fahantay oo timaha ku dheeranayso ku xafidayso atijaabi dadka timaha la tijaabiyan ma fahantay nin bidaar leh oo dagaal isaga jira arkay ma fahantay iyo haddana waxa jiro fiiri dhalinyaro badan markaan dhaanay saliidan inaan markii xilligaas la gaarin inaan joojiyo aan mid kala bilaabo okay yes saliida badan ay soo qoreen yes kuwa waxay ku leeyihiin saliidana ka wadaa waad qarinaysa waa yeelaysa waa kan war aniga saliidaas sheegaysa weligay ma arkin mana isticmaalin midda ka hadlis magaceedana xataa ma baraadinba waa hadda ka hadlis adiga ku tahay yes isoo sheeg taad adiga la jeclaato yes laakiin midaan ku sheega aniga tan sheegay insha Allah waa arki doontaa waxba suugaan hadagdagin dagaalkana jooji ha degdegin insha Allah waa arkaysaa waxaan xoog maaha adiga wax la imow dib ma jiro wax keensa adiga maaha taada inaad dagaal aad ku soo qaadid wax dagaal wax taray male xoog in wax la isugu sheegana waxay taraysa male cid wax lagu qasbi karna ma jirto nin walba asaa lacagtiisa haysto nin walba asaa wixiisa haysto cid lagu qasbi karo haba yaraatee bataatan maba jirtaba soo maaha no way cidna wax lagu qasbi karo yaa wax lagu qasbi karaa ilma yar ma wadanin dad waaweyn aan fahantay marka waxba adii dhibaa arkinta adii sheegays ila soo wadaag insha Allah laakiin diyaar umihi waqti xaadirkan hadii faa'iido adii ku keentay yaas waa tijaabin waa gali la hadii baad faa'iido ku keen way sababta igu dirqinaysa ama igu qasbaysid maxay tahay laakiin insha Allah mid kale waa taas waa gooni waqtigeeda la gaaro waqtigeeda arki doontaan ka gudba marka insha Allah waxaan kula talinayaa asxaabta fadlan wax xoog la isugu qasbaya meeshaan ma jiraan cidna ma qasbaani cidna ma maamulo cidna mtaqaanaa awoodiisa ma haysto qof walba asuu ilaahay awoodiisa uu siiyay marka fadlan waxaan u nahay kaliya just inaan tala wadaagnahay tala un baa wadaagayna waa ku mahadsantiin nin walba tiisaaba luquntiisa qoorta ugu jirta ma nin walba luqunta qoorta ugu jirta ahayd ma fahant marka iga raali noqdo labada maalin aniyo caajislow xun baa noqday wallahi caajislow xun baa noqday xoogaa qoraxdii ma ay dhibtay oo qoraxdii badneyd maalmahan jirtay ilaa hadda maalmahan qorax aad u kulul jirto marka taas ma keenayso ma garanayo masajadii oo horta tirada ka soo batay oo gaaray ilaa iyo saacadiiba gaarayo 800 900 oo message saacadii gaarayo wallahi messages batay waxyaabahaas oo kale wax weyn ma aha insha Allah dulqaadkeeda u yeelan doona marmarna qofka hadee bil aadanka xoogaa culayska ka bataan uu iska daalaya sababtoo markuu
saacadii keliya 40 qof uu jawaab siinayo run ahaanteed waa daalaysaa bili aadanna waa tahay taas laakiin culays wax weyn ma aha insha Allah waxaan u suubsan doonaa nidaam aan kula dhaqmo dadkaas ayaan u suubsan doonaa fadlan hal midna waa idin dhihi doonaa walaalayaal waa idin baryaa hay daalin marka qaybtood qof dad badan 20 ilaa 30 qof waxay kugu daalinayaan bas assalaamu calaykum ku soo qoran wa calaykum assalaam oo qoraysa okay haddana hadhow dooday ku sii qabsanayaan fadlan assalaamu calaykum marka soo qortid wa calaykum assalaam in haddana kugu soo jawaabo ha sugin waa hal mid suubi assalaamu calaykum marka ii soo qortid su'aashaad ii soo qor kadib anigu calaykum assalaam ana jawaabtaan ku soo qoray waa kala dhamaanayna laakiin assalaamu calaykum bas ii soo qoraysa anigu markaas waxaan arkayaa saacad kadib baan qoraalkaaga ku imaanayaa san maantana uga jawaabayo maxaa imaanaya markaas ina aniga markaas bas aan ku soo siiyo wa calaykum assalaam aan wax kale aan ku soo siin hadhow adigana dan su'aasha ay soo qoraysa marka taasna maxay noqonaysaa fadlan waxay noqonaysaa jiid aan ku jiiday waa gacmo daalis waa isku daalina fadlan su'aashaada hal mar soo qor ana se hal mar kaaga soo jawaab ma hayna hadalka maanta isku celcelino ma salaamu calaykum wa calaykum assalaam haddana adigana maxaa soo qoraysaa muddo kadib seetahay a soo qoraysaa no way meeshaan xog wareysi waa gooni taas ii soo qor hal mar salaamu calaykum walaal waxaan ku rajaa inaa fiican tahay saasaas aniga su'aashaasaan qaba yes markaas anigana wa calaykum assalaam jawaabtaada waa kusoo siinaya walaal waa sax laakiin intaas keliya haddaad soo qorto walaalkayow dhib baa meesha macnaha waxaa imaanaya waqtiga inaan iska lumino bes just inaan waqtiga iska qaadno ayaa imaanayso wax kale oo imaanaya meesha male oo soo kordhaya oo macna noo soo kordhinaya male marka qalad fahanka wuxuu ka imaanaya intaas uu ka imaanaya ma fahamtid marka fadlan waa idin baryaa salaantaada markaa ii soo qortid kadib su'aashii ii soo raaci si hal mar anigana aan u aqriyo ana jawaab aan ku soo siiyo yes aan u kala baxno laakiin aniga adiga bes is haysano muddo badan 20 ilaa 15 daqiiqo is haysano waa laga fiican yahay nato dadkan way badan yihiin aniga kaliya adigana jawaab sugaysa dad iiga xanaaqana waa arkay salaam calaykum waa ku soo qornay noomaada soo jawaabin waa u jawaab calaykum assalaam oo qoray assalaam calaykum calaykum assalaam qalbigii aniga qofkaas cilmi qayb mihi ma fahanti ma ogaan karo wuxuu ka hadlay wuxuu weydiinaa wax su'aal jawaab iska siin karo marka dad badan oo iiga xanaaq waa arkay oo igu dul qaadan waay intaas ayaga qaladkan ayaga iskale dambigana anaa qaadanayo marka waxa waaye ma soconayso taas ma soconayso fadlan iga raali noqda dhib hay arkina inaa idin dhibsadana ma laakiin idinka waxa soo qoraysaan marka qaybto dad badan aan waa ku farxa marka ay soo qoraan magacooda waxoodii salaantii intay soo salaama magacoodii soo qoraan su'aashoodii yes ana waa u jawaaba yes dadkaas oo kala la raba wixii in qofka hal mar dhaaftaan laakiin idinka waxa jeclaytiin jugjug meesha joog leh in la ahaado bas marka insha Allah walaalayaalow yaan dib lii arkin marka muhiimadan waxay tahay dad badan oo commentigan ku arkay oo aad dadku caawinayo yes waa waxay yaqaanaan bay ku caawinayaan walaalahood intaas loo baahan in la iscaawiyo just ani kaliya ma aqaan idinka dhan waxay waa taqaanaan marka fadlan hayse yeelna adoo wixii bay yaqaano ku caawiyo ninkaas walaalka qofkaas walaasha kulli hal iscaawiyo hal isgarab istaago haddaan isgarab istaagna waa qabsan karnaa teeda kalena insha Allah fadlan waxaan leeyahay dhalinyarta yaryar iska dhaafa waxyaabaha madaxiina marinaysaan joojiya waa iga digniin haddaad haysataan waqti wallahi oo jaanis aad u fiican haddaad haysataan akhyaaray wallahi haddaad jaanis haysataan oo jaaniskiina wuxuu yahay jaanis mataqaana aan la heli karin hadduu yahay wallahi runta haddii laga hadlo akhyaaray wallahi jaanis fiican haystaan jaaniskiina ka faa'iidaysta dhalinyaro rag iyo dumar madaxiina timihiina iska khasaarinina timihiina idinka gacmihiina isaga googoynaayo 90% macnaha adiga soo dadajinayo waqtigeeyo laga yaabaa xataa bidaarina ku gali karto ma ogid inaysan ku gali karin marar adaa gacmaha ku keensanayo marka adiga gacmaha ku keensanin waxaan ilaahay uu ka celinayaa laakiin dadaalkeeda la imow adiga waxba gacmaha ku keensanin waxaad ku dadaashaa kaliya just inaad iska ilaaliso waxyaabaha aan macnaha kugu fadhinin oo axna aan ku soo kordhina laakiin dhibkaaga ka qayb qaadanayso oo dhibkaaga ka qayb qaadanaya marka waxaas iska ilaaliya fadlan iska ilaaliya waa digniin mar walba digniinta fiican marka waxaad leeyahay akhyaata rag iyo dumar insha Allah waa mahadsantiin fadlan ascaawino anigana de hal caawiyo subscribe-ka like-ta share-ta intaba waa ku mahadsantiin assalamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh